kulantin wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada channelkayga Mucjisati fadlan hadaad nagu cusub tahay subscribe saar siina share garee la wadaag asxaabtaada. dalka lagu magacaabo Suriname wuxuu dhacaa waqooyiga qaaradda Ameerikada Koonfureed. dhanka bari wuxuu xuduud kala leeyahay dalka lagu magacaabo Guyana al-Faransiya. dhanka galbeed waxa uga beegan Guyana. dhanka koonfureedna wuxuu ka xigaa dalka Brazil. waqooyigana waxa ka xiga badda lagu magacaabo Atlantic Ocean. dalkan oo ka mid ah dalalka ugu yar caalamka waxaa ku dhaqan dad aan ka badnayn 450,000 oo ruux, kuwaas oo kala luqad ah kala diin ah. waxaa dalkan caasimad u ah magaalada lagu magacaabo Paramaribo, waana magaalada ugu weyn ee wadanka Suriname ugu dadka badan. dalka Suriname wuxuu martigeliyaa dad muslimiin ah oo ka badan 100,000 oo ruux, kuwaas oo saameyn dhan walba ah ku leh bulshada dhexdeeda. islaamka ayaa gaaray dalkan yar bilowgii qarnigii 17aad ee milaadiga. islaamka ayaa markii uu Suriname gaarayay waxaa dadka halkaas ku dhaqan ay dhex muquuranayeen gumaysigii gaalada Holland. dad badan oo la adoonsanayay lagana keenay koonfurta qaaradda Afrika ayaa si lama filaan ah sufuuftooda waxaa uga soo dhex baxay dad muslimiin ah. muslimiinta oo caan ku ah inaysan marnaba dulliga raali ku noqon ayaa dadkii la adoonsanayay waxay ku guubaabiyeen inay kacdoomaan oo gumaystaha reer Yurub ay iska kiciyaan. taariikhyahanadu waxay sheegaan in mid ka mid ah muslimiintii uu kacdoon u bilaabay dadkii adoonsiga ku jiray si ay dulliga ay uga baxaan, wuxuuna qaaday weerar isagoo markii dambe howdka galay, wuxuuna watay boqolaal ka mid ah dadkii la adoonsanayay ee ku kacdoomay guubaabadiisii. hijradii muslimiinta ee Suriname ayaa xigtay muslimiintii ugu badneed ee wadankaas islaamka ku faafiyay ayaa ka yimid wadanka Indonesia ee koonfur bari qaaradda Aasiya horaantii qarnigii 17aad ee hijriga. muslimiinta ayaana hadda tiro aan la dhayalsan karin ka ah wadanka Suriname. waxaa lagu qiyaasaa inay ka badan yihiin 110,000 oo ruux. 75,000 oo ka mid ah waxay ka soo jeedaan Indonesia, 30,000 waxay ka soo jeedaan Hindiya iyo Pakistan, halka inta kale ay ka yimideen galbeedka qaaradda Afrika iyo dad u dhashay wadanka oo diinta islaamka qaatay. marka laga hadlayo bisha barakeysan ee Ramadaan, muslimiinta Suriname waxay leeyihiin caadad ay kala mid yihiin muslimiinta kale. muslimiinta Suriname sanadkan waxay soomayaan 12 saacadood oo xiriir ah. marka la gaaro afurka ay caan ku yihiin inay fagaarayaasha isugu yimaadaan sida masaajida iyo barxadaha maqaayadaha, halkaas oo si jamaaci ah ay ugu afuraan. waxyaabaha ay ku afuraan muslimiinta reer Suriname waxaa ka mid ah timir, qahwo, roodhi, hamburger iyo waxyaabaha kale ee macmacaanka ah. sidoo kale muslimiinta Suriname ayaa afurka aad u cuna khudradda noocyadeeda kala duwan iyo hilibka. caadadka kale ee reer Suriname ay caanka ku yihiin waxaa ka mid ah in marka la gaaro saxuurta dadku ay iskiciyaan iyagoo isticmaalaya aaladaha codbaahiyaasha. badanaa muslimiinta Suriname waxay ku saxuurtaan rooti iyo kalluun la soolay. marka la gaaro bisha Ramadaan waxaa wadanka afur jamaaci ah ka sameeya hay'ado ka socda wadamada caalamka islaamka sida muassasaad khayri ah oo laga leeyahay dalalka Turkiga iyo Kuwait. muslimiinta Suriname ee sunniyiinta ah ayaa tashwiish iyo dhib waxay kala kulmayaan firqada qaadaniyada loo yaqaan ee baadilka ah. salaada taraawiixda iyo i'tikaafka masaajida lagu nagaado ayayna caan ku yihiin muslimiinta Suriname. jabal Daariq oo luqadda Ingiriiska lagu yiraahdo Gibraltar waa gacan biyood muhiim ah oo u dhaxeeya labada badood ee kala Atlantic iyo Mediterranean. sida laga garan karo magaciisa waa buur yar oo ku dhex taal labada, balse leh deegaano ballaaran oo ay degan yihiin 100,000 oo qof. wuxuu dhacaa koonfurta fog ee jasiiradda loo yaqaano Iberia. jabal Daariq waxaa loogu magac daray halyeegii Daariq bin Ziyad, amiirkii magaalada Danjah kana mid ahaa hogaamiyaashii muslimiinta ee furtay dhulka bilaadul Andalus ee maanta loo yaqaan Spain iyo Portugiiska. magaca jabal Daariq ayaa baxay qarnigii 1aad ee hijriga, kolkaas oo qaa'idkii weynaa Daariq bin Ziyad oo ciidamadiisii duulaanka ku ahaa dhulka Spain uu dejiyay buurtan yar ee jabal Daariq. ciidamadiisa oo ka yimid dhanka dhulka bilaadul Maghrib al-Islaami ee maanta loo yaqaan waqooyiga qaaradda Afrika. jabal Daariq ayaa hadda wuxuu ka mid yahay dhulalka maqan ee muslimiinta laga haysto, waxaana ka jira maamul hoosaad hoostaga dowladda Ingiriiska laga soo bilaabo sanadii 1981 oo ay siisay maamul hoosaad iyadoo tala ay ku leedahay, balse waxay dhurataa dhaqaalaha ka soo baxa dalxiiska iyo garoomada diyaaradaha. waxaana jira khilaaf u dhaxeeya Spain iyo Ingiriiska oo ku aadan maamulidda jabal Daariq. sanadii 1714 ayay dowladda Spain uga tanaasushay Ingiriiska gacan biyoodka jabal Daariq, inkastoo dhowr mar labada dowladood ay isku maandhaafeen dhaqaalaha ka soo xarooda iyo cid ay hoos tagayaan dadka ku nool jasiirad oo ka ah jabal Daariq. مضيق جبل طارق
يقع مضيق جبل طارق بين شبه جزيرة إيبيريا شمالا وشمال أفريقيا جنوبا. marinbiyoodka jabal daariq waxa uu ku yaalaa inta u dhaxaysa bariga dhulka jasiirada eekaha Iberia iyo koonfurta waqooyiga qaaradda Afrika. waxa uu marinbiyoodkani isku xiraa badda Mediterranean-ka oo ka xigta dhanka bariga iyo badweynta Atlantika oo galbeedka ka xigta. waxa horey luqadda Carabiga loogu aqoon jiray badda Al-Zuqaq. ilinka galbeed marinbiyoodkana waxa ka xiga dhulka Ras Isbradil ee ay maamusho Morocco iyo dhulka Ras Daraf ee Al-Aqar ee Spain. marinbiyoodkan waxa uu si isku mid ah ugu beegan yahay wadamada Morocco, Spain iyo mandiqada ismaamul goboleedka Jabal Daariq ee ay Ingiriisku haystaan. dadka qaarkiis waxay u haystaan in qaybta Spain kaga beegan ee marinbiyoodkan Jabal Daariq ay maamusho dawladda Spain. sidaas arintu ma ahan, dhulkaas waa mustacmarad Ingiriisku haysto oo iyaga ayaa maamula. marinbiyoodkan waxa lagu magac diray hogaamiyihii muslimka ahaa ee Tariq ibn Ziyad, kaasoo marinbiyoodkan ka gudbay xilligii muslimiintu bilaabeen furashada dhulka hadda loo yaqaano Spain sanadku markii uu ahaa 711 miilaadiga. cumqiga biyaha ee marinbiyoodkani wuxuu gaarayaa qiyaastii 300 mitir, labadiisa cirifna waxay isku jiraan qiyaastii 14 kilomitir. waxa uu ka mid yahay marinbiyoodyada ugu muhiimsan caalamka. waxaa horey loogu magacaabi jiray tiirarka Hiraq, waxaana la sheegaa in gadaasha dambe ee marinbiyoodkani ay ooli jirtay qaaradda Atlantika ee khiyaaliga ah. ويبلغ عمق المياه فيه حوالي 300 متر وأقصى مسافة بين ضفتيه 14 كيلومتر. markii gacanta ku dhigeen dhulkii la oran jiray Andalus ayuu Jabal Daariq ka mid noqday meelaha laga barakiciyay muslimiinta, waxaana lagu deegaamiyay dad Nasaara ah. buurta hoosteeda waxaa ku yaala magaalada weyn ee Jabal Daariq oo u kala qaybsan ilaa 2 qayb oo kala hoostaga Ingiriiska iyo Spain. sidoo kale qayb yar oo ka mid ah Jabal Daariq waxaa maamula dawladda Morocco oo xuduud dhanka badda ah la leh dawladaha qaaradda Yurub. dadka ugu badan ee ku nool Jabal Daariq waa Yahuud haysata dhalashada dalka Ingiriiska. saxafiyad u dhalatay wadanka Masar oo sanado ka hor booqatay Jabal Daariq ayaa muuqaal video ah oo ay ka soo qaaday magaalada waxaa ka muuqanayay kaniisado iyo goobo dalxiis oo magaalada ku badan, halka masaajidda muslimiintu ay ahaayeen kuwo aad ugu yar. inkastoo galadu ay la wareegeen Jabal Daariq, haddana waxaa weli halkaas ku nool dad muslimiin ah oo aad u tiro yar ahna aqaliyad marka loo eego dadka gaar ee halkaasi xooga lagu dejiyay. jaaliyadda muslimiinta Jabal Daariq oo hadda marti ka ah dhulkii awoowayaashood ayaa dadaalka ugu ballaaran waxay ku bixinayaan faafinta diinta Islaamka iyo sidii jiritaankooda ay u muujin lahaayeen. madarasada barashada diinta Islaamka iyo luqadda Carabiga waa mid kaliya ay hortaagan goobaha waxbarashada, sida uu sheegayo mid kamid ah macallimiinta jaaliyadaha muslimiinta oo asal ahaan ka soo jeedo dhulka Al-Maghrib ee Morocco loo yaqaano. نحن الجالية المقيمة بجبل طارق عددنا لا يقل عن 2160 واحد. anagu haddii aan nahay jaaliyadda ku dhaqan Jabal Daariq tiradeenu kama yara 2160 qofood. ilaahay mahadiis barnaamijyada ay jaaliyaddu qabato waxaa ka mid ah waxbarashada. anagu waxaan nahay 2160 qofood oo kaliya. sidaas oo ay tahayna waxaan leenahay qaybo kala duwan. waxaa halkan ku taala madarasada Al-Fatah oo ku dhex taala jamciyadda, taasoo mas'uul ka ah dadka Marookaanka ah. ardaydu way joogtaa balse macallimiinta ayaa nagu yar. hawshuna way isdul saaran tahay, balse ilaahay mahadiis natiijo ayaa dadaalkaasi ka soo baxday. dhibkan haysta waa inaanan haysan cid naga caawisa arrimahaas waxbarashada iyo tarbiyada carruurta, haddii ay ahaan lahayd gudaha Jabal Daariq ama banaankeeda intaba. carruurteenu waxay u baahan yihiin inay dadnimadooda ilaashadaan, taariikhdooda iyo jiritaankooda ilaashadaan. waxay u baahan yihiin cid arrimahaasi barta oo fahamsiisa. ويحافظوا على التاريخ ديالهم، ويحافظوا على العراقة ديالهم، ويحافظوا على الرأي ديالهم، ولدتنا محتاجين اللي يعلمهم واللي يفهمهم. waxaa la sheegaa in dadka ku nool Jabal Daariq ay gaarayaan 500,000 oo qof, balse tiro koob iskhilaafsan oo soo baxay ayaa sheegaya in dadka degan magaalada dhanka Ingiriisku haysto aysan ka badnayn 30,000 oo qof. waxaan ka badnayn 14 kilomitir waxaa Jabal Daariq u jirta magaalada Danjah ee muslimiinta Morocco ay leeyihiin. marka waxa laga gudbo magaalada waxaa la arkayaa boor ay ku xardhan yihiin halkani waa Yurub, taas oo ka dhigan istiraatiijiyadda uu leeyahay marinbiyoodkan caalamiga ah. magaalada hoosteeda waxaa ka qodan godad waaweyn oo wadooyin laga jeexay, halkaas oo sanad walba ay u soo dalxiis tagaan dad ka badan 2 milyan oo qof oo caalamka daafiisa isaga kala yimaad.
khilaafka u dhexeeya dowladaha Isbayn iyo Ingiriiska ayaa la rumaysan yahay in gaabis badan uu horseeday dhaqaalaha deegaanka. halka uu dhaco Jabal Daariq ayaa leh istiraatiijiyad militari iyo mid dhaqaale wuxuuna kulmiyay laba ka mid ah badaha ugu waaweyn caalamka oo ay maraan maraakiibta ganacsiga adduunka iyo laba qaaradood oo kala ah Afrika iyo Yurub. haddii aan dib ugu laabano taariikhda Jabal Daariq sida uu ku yimid magaca dhulkan istiraatiijiga ah qarnigii koowaad ee Hijriga ayuu amiirkii muslimiinta ee waqooyiga qaaradda Afrika Musa bin Nasir wuxuu qaa'idka ciidamadiisa u magacaabay halyeeyay Daariq bin Ziyad. xilligaas waxaa khilaafada Umayyidiinta hayay Al-Walid bin Abdul Malik. Daariq bin Ziyad oo loogu magac daray dhulka Jabal Daariq ayaa lahaa taariikh dahabi ah oo iftiimaysa. Daariq bin Ziyad ayaa aad ugu saamoobay dhaqamadii amiirkii waqooyiga Afrika Musa bin Nasir wuxuu heer sare ka gaaray culumta militariga ilaa markii dambe loo magacaabay amiirka magaalada Danja iyo imaaradii Barqa ee waqooyiga qaaradda Afrika. sanadku markuu ahaa 76 Hijriga Daariq iyo ciidamadiisu waxay hareereen adag dul dhigeen magaalada lagu magacaabo Al-Xasiima ee dhulka Maghrib waxaana xilligaas soo islaamay dhammaanba dadkii deganaa magaalada oo ahaa 100,000 oo qof. sidaasna waxaa ku sii xoogaystay islaamka qaaradda Afrika kaas oo markii dambe sabab u noqday in muslimiintu ay furtaan dhulka Andalus loo yaqaan. Musa bin Nasir amiirkii muslimiinta Maghribul Islaam ayaa Daariq bin Ziyad hoggaan uga dhigay ciidamo cadadkoodu gaarayay 7,000 oo askari. ciidamadaas oo duulaan ku qaaday dhulka maanta loo yaqaan Isbayn xilligaas oo ku arriminayay nin lagu magacaabo Ludriqa oo haystay boqortooyo ah oo la oran jiray Al-Qud. Daariq bin Ziyad ayaa ciidamadii muslimiinta ku tirtirsiiyay inaysan u furnayn waxaan ka ahayn in cadawga la kala daadiyo isla markaasna aysan dib ugu noqon doonin halkii ay ka yimideen. أيها الناس أين المفر؟ البحر من ورائكم والعدو أمامكم. dad yahow halkeed ku baxsanaysaan gadaashiinu waa bad cadowguna hortiina ayuu idinka jiraa mana idin furna waddo aan ka ahayn inaad ilaahay u run sheegtaan aadna sabartaan. ogaadana jasiiradan aad joogtaan waad ka liidataan caruur agoon ah oo ay dugaag ku hareeraysan yihiin. cadowgiinuna wuxuu idinkugu yimid isagoo hubkiisii ciidankiisii iyo sahaydiisii ay u dhammaystiran yihiin. adinkuna sahay iyo raashin toona ma haysataan waxaad cadowga ka soo qaniimaysataan ma ahane. haddii wakhtigu idinku sii dheeraado oo aad xaalka wax ka bedeli weysaan awooddiinu way sii daciifaysaa waana la idinku soo dhiiranayaa oo inta aanan xaalkiinnu sidaasi noqonin duulaan ku qaada midkaas kibray ee loo dariiq. waxaa hortiina ka muuqda waa magaaladiisii waana fursad in laga faa'iidaysto ay suurtagal tahay haddii aad geerida ogolaataan. ugu dambeyntii ciidamadii muslimiinta ayaa furtay magaalada Dulayndala oo ahayd caasimadii boqortooyadii Al-Qud ee hogaaminayay Ludriqa. sidaasna muslimiintu waxay ku furteen dhulka Al-Andalus. waa inoo kulankeena dambe iyo barnaamij noocan oo kale ah. fadlan asxaabtiina u sheergalee si ay u noqdaan iyaguna asxaab nagu xidhan. hana ka ilaawin channelka subscribe, like iyo share. waad mahadsantiin dhammaantiin.